في عيبك كجرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد خير خلق الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أحبتي والاليال السلام عليكم ورحمة الله. waxaan jeclahay maanta inaan ka haasawno mowduuc ku saabsan waxaan loo yaqaano soft powerka amba awoodda dabacsan afka soomaaliga amba loo yaqaano afka carabiga quwadda naacimka ah. soft powerna waa af ingiliishi weeye, puissance douce-na waa faransiis weeye. awooddaas baan la noolaaneynaa 6 wadan oo ku yaala gobolkeena bariga dhexe iyo geeska Afrika oo raad ku leh nolosheena guud iyo teena gaarba. maxay haystaan awood naacima oo dabacsan oo isticmaalaan siyaasadooda arrimaha dibadda si ay u fushadaan arrimo gaara oo ay dowladahaasi leeyihiin. dowladahan waa imaaraadka, waa qatar, waa turkiga, waa iiraan, waa sacuudiga, waa masar. marka insha allahu tacaala 6 dowladood waxaan iskaga tagay inaan keeno dowladda Israa'iil, lianna dowladda Israa'iil weli ma haysato awoodda dabacsan oo ay ku soo gali karto wadanadan islaamka ah ama dadka muslimiinta ilaa maanta weli uma hirgelin. marka 6 dowladood baan jecelahay inaan mid walba aan sheego awoodda ay leedahay ee dabacsan ee fudud ee aan isleenahay waa awood naacima, waa soft power, waa douce, puissance douce hoosta kaa soo galaya oo ay u adeegsanayso inay gaadho xaqiijiso ahdaafteeda. ma dheera maanta kelmadu amba muxaadaradu, laakiin waxaan jecelahay inta aan muxaadarada gelin inaan
saddex arrimood ka hormaro. waa marka koowaad halkan waxaan ka xusayaa geerida aadka u dhibaatada leh, qalbiga naga taabatay, indhahana ka ilmeyn siisay, dareenkayagana wax ka soo saartay ee ku imatay walaalkay looyarkii reer Jabuuti amba afukaatihii amba avokaagii ummadda difaacayay marka qaarkoodna siyaasadda ummadda horseed ka ahaa dhinaca maaragtay isbedel doonka. ninkaas jaamac amare meydal iyay u imatay geeridii sabtidii markay saacaddu ahayd 2 isagoo jiifa gurigiisa sariirtiisa jiifa ayuu xaqi u yimid. geeridu waa xaq weeyaan. kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf kastiba waxay dhadhaminaysaa geerida. ilaahay baa yidhi saa tabaaraka wa tacaala, kullu man calayha faan, qof kastoo adduunka kor jooga waa tagayaa, waa dhammaanayaa, ilaahay unbaa hadhayaa tabaaraka wa tacaala. marka walaalkeen geeridaa ku imatay, naxdin bay wadatay, argagax bay wadatay. waxaa naga dhintay haddaan nahay reer Jabuuti waxa weeye waa caqli, waxay naga dhintay waa aqoon, waxay naga dhintay waa maskax, waxay naga dhintay waxa weeye waa xeeryahan, waxay naga dhintay waxa weeye nin intii aan la saaxiibay ee aan wada fadhiisanay dadka ugu yar ee dalkeenna ugu caqliga badan leh ayuu ku jiray. wuxuu aada u yaqaanay xeerasha, weliba waxaad moodeysa inuu lahaa dadku waa laba, dad caqliga dadka qaanuunka diraaso ku sameeya, barta, jaamicada uga baxa, xataa master iyo doctora ku qaata, iyo dad waxa weeyaan maankoogu u samaysan yahay qaanuunka oo xeeryahana. walaalkeen wuxuu ahaa xeeryahan buu ahaa, nin wuxuu ahaa caqliya qaanuuniya leh, maskax qaanuun buu lahaa. qaanuunka uu fahmayey, uu weyleynayey, falsafadda qaanuunku yaqaanay. markii dambena waxaan isla diraasayn jirnay habeenada qaar shareecadda islaamka oo uu aada ula dhacsanaa. ilaahay u naxariisto oo uuna ku talagalay inuu wax ka barto. walaalkay ilaahay u naxariisto, maskaxdaba inaga dhimatay. waa ninka qura buugaan badan ka qoray xeerasha Jabuuti oo dhan, marka dastuurka laga bilaabo ilaa qawaaniinta oo dhan wax badan buu ka qoray. wuxuuna ahaa nin xafidsan qaanuunka, falsafadiisa, ruuxda aamka qaanuunku yaqaanay. naxariis janno ilaahay ha siiyo tabaaraka wa tacaala. dhimashadu way kala roon tahay, laakiin markuu caqli kaa dhinto, maanu kaa dhinto, garab baa kaa dhintay. marka walaalkeen dad fara badan canaan bay u tabin jireen dhinaca siyaasadda, dad fara badan wax badan bay isku haysanayeen, laakiin anu waxaa ma indheynayn, waxaan indhahaygu ay ku hayeen 3 jaanib oo uu dadka kaga duwanaa. waa midda hore waa qaanuunka aan sheegay, waa midda labaade waa ballaadh uu lahaa, waa midda saddexaade waa mid saddexaad oo cajiiba. wuxuu ahaa nin ruuxiya, wuxuu ahaa nin markuu ilaahay iyo nebiga ka sheekaynayo dhilmadu ka soo yaacayso. wuxuu ahaa nin dhinaca cilmiga tasawufka iyo cilmiga qeybka iyo cilmiga yaqiiniga ah, cilmiga taskiyada, cilmiga awliyada, wuxuu ku ahaa nin ku xeel dheer buu ahaa oo aadna ugu xidhan ayuu ahaa. ilaahay naxariistii janno ha siiyo. halkan waxaan uga dirayaa tacsi walaashay Ifraax oo odaygayga u ahaa. waxaan ku leeyahay walaashay sabir iyo iimaan, adiga iyo ubadka aada dhashay dhammaantood. waxaan niga leeyahay ilaahay niga siiyo sabir iyo iimaan. uu naga wada baxay. ilaahay naxariis janno, adiga ayaa ah qofka ugu weyn ee dareemaya inuu kaa dheeraaday, uu kaa baxay. waxaana kugu xiga ubadkaaga. marka intaasba waxaan niga leeyahay waa tacsi. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan kaloon tacsida u dirayaa faamiligiisa dhow iyo faamiligiisa dheer, intaba waxaan ku leeyahay waa tacsi culus. ilaahay u naxariisto. ummadda reer Jabuuti oo dhanna waan ka tacsiyadeynayaa. asxaabtii uu lahaa oo aan qaar badan maanta wada xidhiidhnay oo isku majliska ahaayeen, isku fadhiga ahaayeen,
iyakana waxaan ku leeyahay anoo magacdooda wax badan ka sheegeyn waan iga tacsideynayaa dhimashada ku imatay walaalkeen jaamac amare meydal looyarkaa qiimiga badan ilaahay ha u naxariisto subxaanahu wa tacaala. arrintaas waa arrinta koowaad ee jeclaa inaan ka hadlo. arrinta labaad waxa weeye arrinta ka dhacday magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda shanaad ee Soomaalida, gobolka shanaad ee Soomaalida, dowlad deegaankaas, dowladdii caasimadeeda oo loo yaqaano Jigjiga. waxaan aad halkan aan uga naxsanahay labada arrimood ee dhacayba, labadaba waan ka naxsanahay anigu shakhsi ahaan. arrinta koowaad aan ka naxsanahay waxa weeye aan ka argagaxay inay dadkii uu diyaariyey Cabdi Cumar madaxweynaha gobolku uu u diyaariyey inay marka ay ku imato wadka siyaasaddu uu ku yimaado inay kacaan oo dalka ay burburiyaan. arrintaas waan ka naxay, ilbaxnimo maaha. in kaniisadaha la burburiyo dadku ay ku caabudayaan diintooda, diinta islaamkana kuma jirto, ilbaxnimona maaha. in la burburiyo dadka waxa ay leeyihiin kula degan Soomaalida la degan Oromada iyo Amxaarka, in dhiigooga la xalaalaysto, ilbaxnimo maaha. shucuubtu wax ay dadka ku sameeyeen ma jirto. arrinta argagax badan bay leedahay, waa argagax aan fiicnayn. waa arrinta aan daraatoole ka tilmaamay idaacadda VO markiina wareysanaysay, maxay isbedelkan Etoobiya ka socda ee gobolka geeska Afrika muxuu raad leeyahay. saddexdii arrimood aan tilmaamay arrin ka mida weeyaan. arrinta kow aan ka dhigay weliba inuu isku dhac u dhaco, inay maaragtay gobolada qaarkood intifaado sameeyaan, ay diidaan mashruuca uu wado Abi Axmed. goboladaas oo aan magacdooda qaarkood aan afka mariyey, Soomaalida iyo Tigreega iyo gobollo kaleeto oo dadka qaar ay hadal qaadayaan sida Canfarto kale. markaas waxaan intaasoo dhan sheegaynaa insha allahu tacaala inay arrinta koobaad tahay inaan arrintaas aada uga xunnahay. dadka inta lagu buuxiyey inay Oromo la dagaalamaan iyo wixii kale ka dhacay gobolka Shaca oo dadkii ciidamada Leopoliska loo yaqaano ay barakiciyeen oo qaxootigu uu ku qulqulay dalka Djibouti, gobolada Cali Sabiix iyo Dikhilba. arrintaasna Cabdi Cumar baa ka dambeeyey iyo ciidamada Leopoliska. waana arrin uu abuurayay inay isku dhacaan shicibka Soomaalidu oo dadkani gobolka degan maxaan ku dhahdaa Cityna la rabay inay ku kacaan reeraha Soomaalida qaarkood, kadibna ay taasi keento inuu dhaco dagaal sokeeyo oo dhex mara ummadda Soomaaliyeed. arrintaasina aad waa in looga maaragtay foojignaado, loo soo jeedo, isha lagu hayo, ayna dhicin iyada iyo Soomaali, Oromo iyo Soomaali dhexdeeda midna ayna dhicin. waa muhiim. arrinta argagax bay leedahay, macnayna leedahay. arrinta labaad waxa weeye ciidamadan qaranka ee galay caasimadda oo iyakuna marka ay galeen aynan ku gelin maaragtay si dastuuriya, oo waxay ku gali kareen si istisnaa iyo si exceptional. iyadana waan ka naxnay. gobolada kale waxaan kama dhicin, laakiin gobolkan way ka dhacday. waxay ahayd horta in la daayo bal dagaal shirka ka socda magaalada Diradhabe inuu dhammaado, natiijadiisuna ay soo baxdo, isagana la sugo bal inta meesha uu gaari karo iyo halka uu ku socdo in la eego. ciidamaduna ay hareeryaha joogsadaan bay ahayd, laakiin hase ahaatee kolley diraasaad bay sameeyeen. arrintaasina way dhacday. halkii arrimuhu ku socdaan iyada mar dambaan isla eegi doonaa hadduu ilaahay dhahdo subxaanahu wa tacaala. weli waxaan dhaha ku haynaa arrimo fara badan. waxaanan in badan sheekaysanay madax fara badan oo gobolka ka shaqeeya, dadka madaxda Dulmidiid, madaxda Siraaj, madaxda maxaa dhahdaa Barbaarta, madaxda ONLF. in fara badan baan iyakana aan ka sheekaysanay. waxaan rabaa inaan sii wado sheekadaas, kadibna sheeko kale oo iyaka naftooda aan la galay madaxda sare ee maaragtay Oromada
in fara badan iyo madax kale oo aada u fara badan oo muslimiinta Ethiopia iyakana arintan waan ka hasawnay aad baan uga sheekaysanay markay ilaa xalay ilaa iyo imika sheekadaas aan ku jirnay marka iyadana marka aan dhambayno iyaan ra'yigayga aan sheegi doonaa iyo meeshay arintu ku dhammaan doonto hadduu Ilaahay dhacdo subxaanahu wa tacaala. arintaas intaas ayada iskaga dhaafayaa. arinta saddexaad jeclahay inaan ka hadlo waxa weeye mar labaad arintii is-afdhaafkii dhex maray labada dowladood adduunka iskugu walaalaysan geeska Afrika waa Soomaaliya iyo Djibouti. dadkeenu waa dad fudud in badani waxaana ugu wacan inay iskhilaafi karaan walaaluhu uma haystaan. Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Qatar waa dad walaala waliba iskaga dhow Soomaaliya iyo Djibouti. haddana maca dalika way iskhilaafeen bal way iska takhalusayaan. siyaasadda mandiqiga sidaas siyaasadda loojikeegu waa sida weeye waa dagaal. siyaasaddu waa tartan, siyaasaddu waa maslaxad weeyaan. marka in badan waxaan ku celinayaa luqadan iyo caatifada ah wax badan inooma tarayso iyo luqadan akhlaaqiga ah oo aad u weyneynayna in leenahay walaalnimada mushkilad bay leedahay. waxaa sax ah in si strategical loo sheekaysto. waxaan sheegaynaa ninka maaragtay madaxweynaha ka ah Soomaaliya maxaa la dhahdaa madaxweyne Farmaajo qalad historic ah oo taariikhi ah iyo qalad strategical labada uu galay. marka inuu saxana waa laga maarmaan isaga iyo shakhsiyan inuu saxa ay tahay. dowladda Djiboutina inay u xisaabisan maaha Farmaajo inuu yahay arday amba uu yahay qof waajib ay ku tahay waxa ay doonayaan inuu sameeyo maaha. waa in lagu sheekaysto luqadda strategicalka ah. inta aad iga dulboodaysid wadan kale oo kaafu ku boodaysid horta aniga inaan sii sheekaysana ay ahayd, inaan wax isla dhignay ahayd, inaan wax isla fahanay ahayd. marka taasina waa laga maarmaan in saas la isku fahmo. hase ahaato haddana dowladda Djibouti dadka Soomaalidu ma ogo wax badan baa ka maqan. waxa ugu horeeya ka maqan waxa weeyaan waa iyada ayaan wali ishelin oo isdoonaysa. intaas marka aan ka baxo maanta muxaadaradeeni baan u imanayaa. muxaadaradan waxaan ka hadlaynaa amba kelmadan waxaan ka hadlaynaa waxaa jira wadano ina taasiirinaya raad inagu leh. dadkeenu inta badan way ka hadlaan. Imaaraadku raad buu inagu leeyahay, baduhu soo degayaa. Qatar iyo Turkigu raad bay inagu leeyihiin. Iiraan raad bay leedahay. Sacuudigu raad buu leeyahay. Masar raad bay inagu leedahay. waxaan jeclahay inaan saddex arrimood su-aal xaggan iska weydiino oon galno. kow, horta dowladahan waxaa ka dhexeeya laba arrimood. afar dowladood waxaa ka dhexeeya islaam iyo carabinimo. jaamacadda carabta ay ku wada jiraan, ururka islaamkana way ku wada jiraan. laba dowladoodna waxay ku jiraan ururka islaamka oo quraate carab maaha, Turkiga iyo maxaan ku dhahdaa Iiraan. haddana dhinaca kale waxaa la isku dhahdaa saddexdan waa dhadhaarada islaamka. islaamku wuxuu leeyahay saddex dhadhaar oo waaweyn oo dherigiisu ku dul karsamo. dhadhaar waxaa dhahdaa alfurs waa Iiraan. dhadhaarna waxaa dhahdaa alatrak waa Turkida. dhadhaarna waxaa dhahdaa waa carabta. islaamku xadaaradda islaamka ilbaxnimada islaamku biduuni carab ma socon karta, laa taariikhan laa xaadiran laa mustaqbalan. storygana islaamka carab baa soo xambaartay, bal qur'aanka af carabiyaba بلسان عربي مبين كتاب عربي قرآنا عربيا غير ذي عوج. إلهي بس دايري وحيقا عربة في عربي بكسودي. مركا عربتو إذا أي حضارة الإسلام كساميسي وحيهين مؤسسين. حضارة الإسلام كبنات بلا واحد دسي فارس. هديتها اللقطة، هديتها فلسفة، هديتها علمك بيرسيا قاعد يسي. حتى في عربي رجع أقويا قا نسيبة وي نك نحوها في عربي مرجع أقوينا وفارسي ويان. إن علماء واوين المحدثين وفارسيين وحاس أردن إلا ويري ابن خلدون رحمه الله والغريب وحياة بدن أن حملة العلوم تذكر علمك حنبارسن دينتا يا في عربه ومن العجم لا من العرب. عرب ما هو عجم. مركا تاسينا ولا قام مرمانا أوغانو. عرفت صدحات دارك صدحادي وحنا إسلامك حضارة إسلامك عرب أساستي وحا كبعي فارسيين وحا دفاعي تركي. turkidu markay xadaaradii dhisantay wixii ka celiyay dowladii turkidu markay abuurantay salaajiqadii kadib
dowladdii weyneed ee cusmaaniyaddu iyada ayaa ilaalisay islaamka iyo xadaaradda islaamka iyo makiya madiinaba iyada ilaalisay wax ku dhow 6 qarni marka waxaa la dhahdaa saddexdaa qolona way asaaseen qolona way dhiseen qolona way difaaceen maantana suurtagal ma aha in bariga dhexe uu ka asaasmo amba adduunka islaamka ilbaxnimo saddexdaa ay ka maqan yihiin ninka la dhahdo xasanan haykal oo ragga taariikhda aad u dabaguro ah kutubtiisa wuxuu ku sheegaa waxa weeyaan qadar weeyaan iiraan turkiguna waa qadar carabtuna waa qadar ilaahay baa isku qadaray meesha ay degan yihiin ma kala maarmi karayaan marka ninka yidhaahdaa anu turkiga ma arki karo waa nin qaldamaya ninka yidhahdaa anu iiraan ma arki karo waa qaldamaya waa qadar weeye iiraan inay shiico noqotay waa doorasho weeyaan shiica yihiin iiraaniyiintu carabta in badani waa shiico inta ugu badanna waa sunna weeyaan turkidu inta badani waa sunna in yaroo shiicana way ku jirtaa farisna waxaa jira sunno badan laakiin shiicada ka badan okay in dadku sunno iyo shiico noqdaan waa doorasho weeyaan hase ahaatee lama bedeli karo oo suurtagal ma in dhahdo adduun wada sunno aan abuuraynaa ama adduun wada shiica iiraanna dadka ma sunniyeyn karto sacuudiguna adduunka iiraanna dadka ma shiiciyeyn karto sacuudiguna dadka ma sunniyeyn karo intaha alamru amarkaasi waa amar dhammaaday weeye laakiin waa dhici kartaa inay dadku haddana maaragtay meel u bataan oo wax suurtagala weeye marka dowladahan aan ka hadlayno waa sidaas weeye inaan u fahno waa dhardhaaradii islaamka weeyaan okay dadka kale maxay yihiin adduunku intaa unba maya dadka kale waa dadka waa dherigii iyo waxa dheriga ku dhex jira weeyaan waxa kale waa dherigii iyo waxa dheriga ku dhex jira weeyaan laakiin dhardhaaradu waa saddexdaa weeye marka intaa haddaan ka soo baxo dowladahan imika waxaa ka dhexeeya tartan inuu ka dhexeeya ma aynan ahayn waxayd inuu ka dhexeeya waxa tansiiq hadday inay jiraan ay doonayaan abu yacrab almarzuuqi filosofka la yidhaahdo ee tunisiga ah iyo doctor maxamed atulaabi caalimka istaraatiijiga ah ee wadanka Maroc u dhashay labaduba waxay sheegaan ma dhici karto in tanmiya ay dhacdo development adduunkan maanta aan ku noolahay kama dhici karo shicibku hadduu ka yaryahay 100 malyan shicibku hadduu 100 malyan ka yaryahay ma samayn karo tanmiya horumar ma samayn karo kobac ilbaxnimo ma samayn karayo lidalik baa la leeyahay 2035 wadanka shiinuhu adduunka isaga hogaaminaya dhinaca aqoonta iyo dhinaca powerka iyo dhinaca siyaasadaba maxaa ugu wacan waa 1 milyaar iyo 500 milyan oo qof yani waa quwad bashariya oo qaraar siyaasiya leh waxaa ku xigaysa wadanka hindiya waa 1 milyaar isaguna uu sii dhaafay waa quwad xoog waa bashar waa khusuuba waa bashar barwaaqo ah badan cadadku waa muhiim maanta haddii awal cadadku macno male tayaa loo baahan yahay loo oran jiray waxaa la ogaaday inay tirada iyo tayadoo wada socota ay muhiim tahay saa daraadeed baa laleeyahay hindiyana waxay noqonaysaa quwad xoog badan oo quwadda saddexaad ee adduunka noqon doonta waqtiga 2050 ay noqon doonto okay wadanada carabtu ma noqonayaan quwad ma noqonayaan waxaa u rashaxan inuu quwad noqdo waxa weeye bariga dhexe oo dhan waa 3 quwadood waa masar oo hogaamin hesha turkiga iyo iiraan sababtuna waxa weeyaan waa waxyaalo badan laakiin waxa ugu muhiimsan waa quwad bini aadan oo badan masar waxay noqonaysaa mar dhow 100 milyan halka iiraan ay ka noqon doonto qarnigan bartamihiisa 100 milyan wax ka badan turkiguna mar dhow noqon doonaa wax ku dhow 100 milyan waa ogtihiin inuu bilaabay madaxweynaha dalka turkiga Erdogan inuu yiri qofkii 4 amba 5 u badan dhala waxaa la siinayaa maaragtay waxyaalo lagu tashjiicinayo oo ay xataa ka mid tahay mishaarkoo la kobciyo iyo waliba guryo loo dhiso iyo baabuuro iyo wixii la halmaala oo la siiyo qofka marka ubadka badiyo marka ubadka yareeya meel ka socota meelaha qaarna waxaa ka socota ubadka badiya baynamaa la filaya Jarmalku inuu noqon doono qarnigan dhammaadkiisa 35 milyan oo quraatay wadanada qaar Yurub waxay noqon doonaan 15 milyan iyo noqon doonaan waxaa dhada qaaradda Yurub qaaradii duqaha waxaan leeyahay waxay noqon doontaa qaaradii bila ubadka waxayna ku socotaa in la dhado qaaradii kala duruga waxa kala durkaya generationka dhalanaya iyo generationka duqoobay oo hore u dhimanayn 98 gaaraya iyakuna way joogayaan kuwana si qaayara u imanayaan waa la kala durkaya waxa baabaaya kuwii dhexda marka cabsi weyn baa ka jirta qaaradda Yurub saadnaadeed buu Rumsfeld u bixiyay qaaradii duqaha qaaratul ajuuz okay walaalayaal macluumaadkaas waa muhiim inaan isha ku hayno oo la socono
markaan samaynayno waxa loo yaqaano lecture strategic alqira'a الاستراتيجية okay waxaan imaanaa mawduuceenin saddex meelood baan ka eegnaa kow dowlad walba maxay horta haysataa quwad maxay haysataa force amba maxay haysataa puissance maxaa dhada duus ah amba maaragtay waxa aan u bixinay maaragtay ingiriiska maxay wixii loo leeyahay maxaa dhada maxay magaceegi soft power loo leeyahay amba se afka carabiga quwa naacima amba af soomaaliga dabacsan awoodda dabacsan af soomaaliga okay maxay dowladdu haysataa kuwa laba waxaan eegi doonaa see u isticmaashaa saddex waxaan eegi doonaa dadka ay ku weerareen ma aqbaleen mise way diideen okay okay dowladood baan soo qaadanaynaa waxa weeyaan dowladahan aan halkan iminka kaga sheekeynano waxay yihiin taxaaluf bay leeyihiin heshiisyo waxa heshiis ah oo u heshiisa inay badda cas qabsadaan soomaaliya qabsadaan jabuuti qabsadaan etoobiya ay soo degaan suudaan sawaakin meesha la dhahda ay degaan waxaa u diyaara waxa weeyaan dowladahan okay laba u kala socdaan waxaa isla socotaa sacuudiga iyo masar iyo imaaraadka way isla socdaan wayna kala socdaan dhinaca kaleeto waxaa isla socda iiraan iyo turkiga iyo qatar oo marka qaarkood iiraan raacdo okay marka kala socda iyaka naftoodu qatar gooni u socotaa turkigu gooni buu u socdaa iiraanna gooni buu u socotaa wax tansiiqa oo istaraatiijiya kama dhexeeyo waxaan ahayn marka qaarkood meelaha qaarkood sacuudiga iyo imaaraadka iyo turkiga iyo qatar okay dowladda imaaraadkan ku bilaabaynaa dowladda imaaraadku maxay haysataa waxa loo yaqaano maaragtay awoodda dabacsan maxay iyadu haysataa amba soft powerka kow dowladda imaaraadku waxa ay fahantay waqti hore sagaashanadii in uunan batroolku ahayn wax sii soconaya waxay sameeyeen markii la ogaaday batroolku inuu guri doono albadiil can albatrool wax batroolka ka badiil ah markaabay sameeyeen mashruuca dubay la dhahdo mashruuca dubay la dhahdo waa mashruuc uu keenay raashid al maktuub uu keenay ninka la dhahdo dubay xakuma waa mashruuc dumuux leh waa mashruuc ujeedo leh waa mashruuc ibdaaca waa mashruuc wax curiyey weeyaan waa mashruuc ay ku jirto maskax siyaasad iyo aragti fog ay ku jirta weeyaan mashruucaas wuxuu noqday mashruuca ay dubay adduunka ku weerartay saddex arrimoodna u sameeyeen kow horta waxay sameeyeen majlis gole conseil golaha loo yaqaano golaha awoodda dabacsan soft powerka waa golo dhan oo dowladda imaaraadku ay leedahay golahaas wuxuu dejiyaa istaraatiijiyadda imaaraadku dunida ay ku weerarayso ay ku soo jiidanayso ay ku noqonayso dowlad ta'siir leh okay imaaraadku markaa maxay adeegsatay waxay adeegsatay saddex arrimood kow majliskaa kadib maxay adeegsatay saddex arrimood kow waxay adeegsatay almaal asiyaasi maalkii ilaahay siiyey ee xoogga badnaa ee ay ka dhaliyeen waxyaalo badan waxay u bedileen quwa naacima quwa dabacsan waxay samaysteen waxa loo yaqaano jamaacatu daqd inay iibsadaan loobiyaal inay ka iibsadaan loobi maraykanka israa'iil turkiga dhexdiisa yurub ingiriiska faransiiska dowlado waaweyn afrika lobbi bay samaysteen lobbigaas oo noqday marka iminka loobiyaadka adduunka la eegayo lobbiga shanaad ee maraykanka waxaa ka horeeya 4 lobbi baa ka horeeya marka lobbiga shanaad ee maraykanka jooga imaaraadka iskale waa lobbi xoog badan weeyaan raadna kule mararka qaarkood qaraarka dowladda maraykanka qaadanayso iska daa geeska afrika marka taas waa mid koobaad weey arinta labaad ay dowladda imaaraadku ay samaysay si ay u yeelato waa maxay waxay samaysay sharikad la yiraahdo Dubai sharikadda Dubai ee dikadaha sharikadda Dubai ee dikadaha waxaa loogu talagalay imika in ka badan ilaa iyo 70 ilaa 70 dikadooda adduunka ay gacanta ku haysaa oo ku kala yaala shanta qaaradood ee dunida ah waxa ay maamushaa intaas 40 dowladood bay dikadahooga gacanta ku haysaa waxay noqotay dowlad qancisa sharikaadka si ay u hoos yimaadiin iyadu ay maamulka samayso Djibouti bayna ka bilowday markii ugu horeysay okay arintaasina waa arinta labaad weey ay dunida ku qabsatay ee quwadeeda maartay softiga
dabacsan naacimkii oo taas weeye arrinta saddexaad imaaraadku ay leedahay quwadda dabacsani waa maxay waa diinta weeye waxay isticmaashaa wax loo yaqaano dariiqada suufiyada waxay adeegsataa culimo aad u waaweyn oo diinta islaamka lafdhabarka ah waxaa ka mid ahaa saciid ramadaan albudi raximahullah lianna wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadku waa suufi weeyaan marka xarakad weyn oo suufiyada ayay sameeyeen waxay adeegsadeen sheekh raada jifri ee yamaniga oo raqiiqul qalbi ah oo dadka qalbigiisa la hadlo ay isticmaaleen waxay iminka isticmaaleen sheekhii weynaay cabdallah bin baya oo lagu tilmaami karo inuu yahay faqiih dhinaca shareecada islaamka hadduuna kow ka ahayn laba saddex noqonayo dunida qardaawi iyo cali jumca iyo la mustawa ah markaas waxa cabdallah bin bayana mashruucaha buu ku biiray mashruucaas marka iyadu waxay sameeyeen waxa loo yaqaano saddexdaa projecti bay dowladda imaaraadku ay u isticmaashay inay dunida ku weerarto okay natiijo maxay u keeneen waxay u keeneen saddex arrimood oo salbi maarata positive oo wanaagsan kow waxay keeneen inay noqoto dubay xaj meel loo soo xajiyo waqtigan xagaaga ah oo meelaha kulul laga dhoofo iyo iyadoo loo soo dhoofaa wax cajiib ka mid tahay waxay noqotay dubay meel iyadoon lahayn wax historic ah iyo noqotay madiina siyaaxiya magaalo loo yimaado turistiga loo yimaado marka malaayiin almalaayiin yaa yimaada milyaaraat ilmilyaaraadna way ka qabataa dowladda dubay marka taas waa midda koobaad weeye marka ay ku guuleysatay arrinta labaad ay ku guuleysatay waxa weeye inay yeelato asxaab caalami ah oo wadan walba ay ku yeelato dad oo markay doontana fadhiisiiso markay doontana sara joojiso way ku guuleysatay arrinta saddexaad ku guuleysatay waxa weeye inay yeelato cumala dabadhilifyaal ku dhaqaaqa lacag ku dhaqaaqa oo u fadhiya adduunka oo dhan marka dowladda imaaraadku arinta la yidhaahdo maxaa dhahdaa alquwa naacima awoodda dabacsan soft powerka saba u isticmaashaa waxaa ku xigta oon soo qaadanaa wadanka qatar waxa weeyaan wadanka qatar waa wadan aad u yar 300 kun dadkiisu ay ka badnayn waa dowlad yar oo magaalo aba jasiirad naa'iya iskaga taala dowladda qatar waxay iyaduna isticmaashay si ay u yeelato waxay leedahay maxaan ku idhaahdaa quwa naacima awoodda dabacsan waxa u isticmaashay iyaduna waxay leedahay saddex arrimood oo laga arka dunida oo dhan kow dowladda qatar waxay isticmaashay maalka iyaduna lianno gaaska waxay tahay dowladda koobaad ee adduunka dhan iyo lambar 1 ka tahay gaaska waxay kula baratantaa ruushka iiraan iminkan waad ogtihiin iyada iyo iiraan inta u dhaxaysa waxaa laga helay gaas maskaxdaada aan geli karayn waxayna isku waafaqeen si aqoon iyo cilmi ku dhisan tahay inay wada yeeshaan si fiican u wada faqadaan marka waa dowlad gaaska soo saarta waa dowladda koobaad ee dakhliga qofka fardiga adduunka lambar 1 bay ka tahay waa dowladda maaragtay 10 dowladood bay ku jirtaa ee pooneerka saacadada iyadii imaaraadku qofka bini aadamkii uu ku raaxaysta wadanka inuu u dhashay uu ku nool yahay waa wadanada ugu yar ee laga qaxootiyoobo adduunka ayay ku jirtaa markaas arrintaas waxay u keentay markaa inay maalka intaa leeg shaqaysiiso ay ka dhigato waxa loo yaqaano soft power quwa naacima oo ay ku weerartay adduunka taas waa ta u keentay iyadoo intaa yar leeg oo shacbigeedu intaa leegyahay inay 2022 ay diyaariso koobka adduunka iyada diyaarinaysa kiimka ruushka dhacayda ku xigta marka taasina waa ta u keentay imaaraadka iyo sacuudigu inay ku hinaasaan marka lacagtii dowladda imaaraadka waxay u bedeshay projecti mashruuc ay dunida waxayna u keentay arrintaas waa kow labo arrinta labaad waxay samaysay waxa la yidhaahdo qanaadka aljazeera ninka la yidhaahdo joseph nay oo jaamacadda harvard dhiga waa ninka sameeyey cilmigan la yidhaahdo quwadan باوركن لهذا مارتي سوفت باوركن لهذا ابا القوه الناعمه ninka tacriifkayga sameeyay erebixinta ninka keenay tacriifka ay yiri waxa weeyaan quwa naacim markuu macneeyay waa adoo karti u yeesha inaad dadka soo jiidatid jadbi dami isku waxaagan u soo qaadatid adoonan qasbayn amba awood isticmaalayn qancinayna qofka ku qancinaya si fudud si dabacsan marka qadar arinta waxay ugu guuleystay inay sameeyso qanaadka la yiraahdo aljazeera qanaadka aljazeera dhahdo nin isbaaniyool wuxuu ku qaatay master wuxuu ka qaatay jaamacadaha waaweyn ee Isbaaniya wuxuu qoray kitaab uu bixiyay dunida carabta ka hor jazeera iyo dunida carabta kadib jazeera waxa la og yahay jazeera inay tahay awoodda iclaamiga
ee ugu weyn ee bariga dhexe waa kow. laba, jaziira waxay tartan la gashay CNN-ta. jaziira way ka badisay idaacadaha faransiiska iyo BBC-da iyo idaacadaha kaleeto dhan dhinac bay iska dhigtay. CNN-ta tartan la gashay itaal badan, marka qaarkoodna ay ka hormartay. jaziira waxay noqotay meesha ay CNN-ta iyo warbaahinta reer galbeedku ay ka qaadan jireen dagaalkii Afghanistan iyo dagaalkii Ciraaq, iyo marka ay dhacaan dagaalada meelaha aadka la iskugu galo sida Gaza iyo wixii la halmaala. bismillaah raxmaan raxiim. Okay, marka jaziira waa quwad, waa power, waa soft powerka ay leedahay dowladdaasi. waxaa intaa u dheer iclaamka, waxay gacanta ku dhigtay iclaamka kubadda oo dhan, oo meesha maaragtay ciyaalka beenka ay ka daawadaan kubadda, maaragtay kubadda adduunka oo dhan, sport oo dhan iyada xidhatay. iyadana markaas taasina waxay u keentay inay noqoto jaziira meel aada u horan. arrinta saddexaad ee weliba iclaamka la socota waxaa ka mid ah oo iyadana xoogu badan, waxay qabanqaabisay shirarka ugu waaweyn ee bariga dhexa ka dhaca ee wax walba laga hadlo: dimuqraadiyadda, xuquuqda insaanka, xorriyaadka, sheekada diinaha, afkaarta. aad u qabanaysa. waxay samaysay maraakiis mutakhasisa oo arrintaa lagaga hadlo. waxay soo jiidatay cuquushii adduunka oo dhan iyo meeshan ay keentay. marka arrinta labaadee ku guulaysatayna waa taa weyn. arrinta saddexaad ee jaziira ay isticmaasho, qatar ay haysato, waxa weeyaan addiblomaasiya waxa loo yaqaano. waxaana qoray arrintaa oo tilmaamay xataa Kissinger, maaragtay ninkani Maraykanka caqliga badan leh, wuxuu dhahdaa waxyaalada ay adduunka kaga badisay waxaa ka mid a diblomaasiyadda. marka diblomaasiyad marina waxaad arkaysaa Suudaan way dhex fadhidaa, Darfur waxay dhex gashay Djibouti iyo Eritrea, waxay dhex arrimaha Soomaaliya ku jirtaa. xataa waxay dhex gashaa meelaha aadka u daran, Daacish iyo Maraykanka, waxay dhex gashaa xarakatu shabaab iyo Soomaaliya. qadaaya mucaqada iyo malafaadkeega iyay gashaa oo ay isticmaaltaa waxyaalo ay leedahay. waxyaaladaas baa ka mid a waxyaalada iminka lagu daray. waxaa ka mid a ay qadar isticmaasho inuu boqorkiis ka casilo maamulka dowladda, isagoon la eryin, isagoon la casilin, isagoon la bukaysin, isagoon la sumin, inuu ilmihiisii iskaga dhiibay si salisa. arrintaasina ay ku abuurtay bariga dhexe isweydiino iyo su-aalo iyo xasad badan ay u keentay. marka qatar iyadna taas bay isticmaashaa, ay dunida ku weerartaa. mid ay wada leeyihiin baan usoo soconaa, laakiin waan kusii soconnaa. waxaan imanaa quwadda saddexaad ee carabta ah waa Sacuudigu. Sacuudigu quwadda naacimka ah. horta iminka Sacuudigu quwaddiisii naacimka ahayd, soft powerkiisii uu baabiiyey. laakiin maxay ahayd soft powerka uu Sacuudigu isticmaalay? isaguna waa saddex inaan la soconaan u baahannahay. kow, wuxuu isticmaali jiray maalka siyaasiga ah. Sacuudiguna waxay u ahayd quwad uu isticmaalo, uu ku iibsado aswaada, bini aadanka, suuqaqa, diinta, wax walba uu isticmaalo iyo ahayd. marka taasi way ka wada siman yihiin wadanada batroolku. arrinta labaad ee Sacuudigu isticmaalay waxay ahayd quwaddiisa naacimkii diinta ahayd. diinta oo ahaa nuskhada wahaabiyadda, wahaabismiga adduunka ku fidinaya. waa nin sheegay maalin horaan ka hadalay 3 jaamicadood oo waaweyn buu sameeyey: jaamicadda la yidhahdo Al-Imaam, jaamicadda la yidhahdo Qura iyo jaamicatu Islaamiya Madiina. waxaa ka soo baxay 10,000 50,000 60,000 oo qof baa ka baxay dunida islaamka oo dhan iyo khaliijkaba. adduunka dhan min wadanadii ruushka ka xoroobay ee muslimka ah, Afrika, qof kasti oo mutadajina oo cilmi leh markaad maanta la kulantid wuxuu koranayaa amba Asjar baan ka soo baxay, amba Sacuudi aan ka soo baxay, amba Suudaan, amba Pakistan, iyaka waa gooni. laakiin Sacuudigu number 1 buu ka yahay inuu intaajka bini aadanka ah ee wadaadada adduunka maanta jooga inuu isagu sameeyey. marka diinta Sacuudigu waxay ahayd quwad soft power ba ahayd, quwa naacima ayay ahayd, gaar ahaan nuskhada wahaabiyada. marka diintu. arrinta saddexaad ee Sacuudigu uu isticmaalayay waxay ahayd waxa loo yaqaano al-hay'at al-khayriya, ururada samafalka. ururada samafalka oo iskugu jira ururo samafala oo ay ururo leeyihiin. matalan salafiyiintu ururay lahaayeen, sida ururka loo yaqaano al-Haramayn, salafiyiinta lahayd. ikhwaanka Sacuudiguna waxay lahaayeen ururka an-nadwa al-caalamiya. marka isaguna dushu ka ilaalinayay, uu sii dhexmarayay, iyakana uu ku tawdiifinayay function, uuna ku tafriiqinayay si isaga ugu soo jeesan adduunku ku jeedinayay. marka awood weyn oo fuqarada lagu jeediyay Afrika Islaamiya, maarta adduunka timirgeeya, dadka ka shaqeeya, diinta mas-uulka ahaada, laakiin ay arkina halkan dhibaatada ka socota ee reer Sacuud ay sameynayaan. marka adduunkana uu ku weerarayay,
timirtaas iyo jimciyaadka iyo madaariska uu asaasayo iyo masaajidka weyn uu dhisayo. marka iminka Yurub markaad aragtid amba Mareykan amba Kanada waxaad arkaysaa masaajid waaweyn oo Sacuudigu dhisay oo laga yaabo imaamyada iyo muadiniinta iyo dadka shaqaalaha ka inay yihiin dad si maaragtay sarbaab si maaragtay si dadban u ah dad aan oran karno waa mukhaabaraad oo Sacuudigiisa uu ugu xidhan yihiin. marka arrimahaas waxay ku tusayaan inay quwadda naacimka ee Sacuudiguna ay saaxid Soomaaliya, Itoobiya, Djibouti waxaan oo dhanna way ka shaqeynayeen. hadday tahay safaarad walba waxay lahayd mulxaqiyad la dhahdo mulxaqa diiniga la dhahdo. waxaa jiray raabidada caalamka islaamka, waxaa jiray maaragtay hay-adda khayriga islaamiga caalamiga ah. waxaasoo dhan baa shaqeynaya oo ahaa soft power ah, quwa naacima bay ahayd. marka waxaanu imaanaa dalka Masar. Masar quwaddiisa naacimku maxay ahayd? Masar quwadda naacima waxay ahayd iyadu laba arrimood oo waaweyn, saddex arrimood oo waaweyn bahayd inaan qaldamin. kow, Masar waxaa lambar 1 ka ahaa awoodda naacimku Ilaahay siiyey Azhar bahayd. marka jaamicadda Al-Azhar oo ay ka soo baxayeen 100,000 kun oo muslimiin ah, ay ka soo baxayeen aqoonyahanka ugu weyn ee muslimiinta. meeshaas Azhar waxay ahayd meesha ay masaaridu dunida ka weerarto, ay caalamka ka qabsato, istiraatiijiyadda ay ka wado bay ahayd. waa lambar 1. lambar 2, Masar waxay ahayd thaqaafada. Masar waxaa la oran jiray qaahira taktub, qaahira tu'alif, qaahira way aliftaa. بيروتنا maxaa loo jiray tatbac way taabacdaa. khartuum iyo bagdaadna waxaa loo jiray taqra'an way akhriyaan. marka dunidu waxay akhrinaysay waxaa masaaridu ay alifaan. marka masaaridu maskaxda carabta iyo muslimiinta iyo xataa Afrika iyo ka sameyn jiray oo Aqaad iyo Taha Hussein iyo raggii maaragtay al-aabaa al-cidaam thaqaafada carabta islaamka sameeyey waxay ahaayeen rag maaragtay masaariya. marka masaaridu meesha labaad wuxuu ahaa as-thaqaafa. ثقافته أولي بها دناء وسيراعي فيلينك هولي وضع مسارد واحد فيلينك دن أمضى عربته أي داودان أفريقيا لقد داودو لمبر 1 كحيتا فيلينك هنديكا يا فيلينك يوروبيان يا رجال بيتك وهو فيلينك مصريكا مركا مصري وحو سميني مسكحة عبر الأفلام بقى لقى سميني ماشي صدح هذا وحوها سياحة مسارده وميل تاريخ له ستوريك بلاد هاي ماشي هذا كسو جيدته قوة ناعم كاستعماشه وحي هيد توريستيك هيد مركا يلنا صدحها بهاجتين أوكي. waxaanu imanaynaa wadanka Iran. waxaan dhameynaa wadanadii carabti. waxaanu imanaynaa labadii wadan ee kale aan carabti ahayn, Iran iyo Turkiya baa inoo haray. Iran maxay tahay quwadeeda naacimka? boqorshaha ma lahayn quwad naacima, لانه ujeedadu ma lahayn boqorshaha inuu meesha xakumo batroolka wadda ka soo baxana isagu yeesho sida boqorada carabta ayuu iska ahaa. laakiin hal kaana min waraa'i dhalika fikra may markuu yimid Khomeini waxaa la sameeyey quwad naacima oo dunida lagu qabsado. quwadda naacimka ee dunida lagu qabsado waxay ahayd tasdiiru sawra. in sawradan Iran ka dhalatay ee la dagaalamaysta waxay u bixiyeen al-istikbaar al-caalami, dadkii adduunka haystay waxay u bixiyeen maaragtay al-istibdaad, ay u bixiyeen dictatorka inay xoreyna bini aadanka taabi iibiyeen. dad badan baa ku qancay 10 sano 15 sano oo Khomeini qadas Allahu sirrahu la oran jiray oo la weyneyn jiray. markaasi quwad naacima ay ahayd oo soft power ah. arinta labaad ee Iiraaniyiintu ay haystaan waxay tuuristiga weeyaan. Iran waa wadan historika 5,000 sano jirta, waa meel dadka soo jiidata weeyaan. arinta saddexaad ee Iran ay samaysay waxa weeyaan tasdiiru sawra. waxay uga faa'iideysatay inay cilaaqaad samayso oo shucuubtii ay ka dhex samaysato dadkiina ay Iran tagaan, ay soo laamaan oo ay abuuraan inay noqdaan juyuub Iran ay leedahay oo wadanadoo dhan dhex fadhiya. waxaa laga yaabaa maanta meel aan shiicaba laga aqoon sida qaaradda Afrika oo kale in shiicada laga yaqaano. marka Iranna waa taas weeyaan quwadeeda naacimkii. اوكي تركيا ونمنا تركيا ولي بقوة ناعم لها وحيهد وسياحة حق تورستيكا لمبرون بوكا ولي جيبا انت جيري سودان. لكن مركو يمدي حزب العدالة والتنمية او اساسي فكر كيغا اربكان او هيرجلي اردوغان محادا شيء يضنا اني سميستو افر اريمود او له قوة ناعمة. قوة ناعم كودا محي قوة ناعم كوباد اي دولة تركي وهيستو وحويا inay namuudaj noqoto. waxay ku leedahay anigu model baan noqonayaa. modelkan noqonaysa muxuu yahay? islaamka maanta sidee dadka loo bari oo dadka loogu fududayni oo dowladnimada loola noolaani oo isku dhac la iska ilaalini ana namuudaja. dadka dhan taas bay ka heleen. marka meel wax isha lagu wada hayay noqotay oo dadka dhan ay dhahdaan waa fikradaas Turkiga waa la qaadan karaa, waa quwad naacima. waa fikradda Turkida noqotay power, soft power. arinta labaad ee Turkiga uu haysto waxa weeyaan waxa namuudajka waxa labeeya sayaaxada oo hadda tuuristiga oo meel ay tagaan waxa loogu talagalay 2000 iyo maaragtay 23 ka
inay soo siyaartaan dalkaasi dad ka badan 45 milyan oo saaxiib turisti inay yimaadaan in laga helo wax ka badan 50 milyan oo dollar in laga helo ayaa loogu talagalay marka waxay noqotay albadiilu can Dubai maanta dadka Soomaalida ee wax ka soo gata Turkiga waxay ka bateen dadka Soomaalida ee Imaaraadka taga arintaas maxay ku imatay sounds kaga iman tallaabooyin la qaaday bay ku imatay oo loo qaaday si soft power sidii tallaabadii uu qaaday madaxweynuhu uu booqashada ku yimiday maartay Soomaaliya ee adduunka oo dhan ku soo jeedisay Soomaaliya marka arinta saddexaadina waxa weeyaan waa filmaanta iminka ay soo saaraan laba film bay soo saaraan film dadka cilmaaniyiintu ay sameeyaan oo aad looga daawado adduunka oo dhan iyo film ay sameeyaan dadka islaamiyiintu sida Ordogorol iyo Maxamed Al-Faatix iyo wixii la mid ah filmaantaas waxay noqdeen filmaanta loogu daawasho badan yahay adduunka bal waxa ay wadaan mashruuc Hollywood al-Islami inay sameeyaan project dhan oo dhado Hollywoodka islaamiga ah oo ay ka shaqeeyaan isaguna waa wax ay maartay kuwa naacimo weeyaan arinta afraad ee ugu dambaysa ee kuwa naacima noqonaysa wax weyn waa bayc mushtarka iyagu waxay wadaan wax dhado at-tijaara iminka madaxweynuhu meeldhood wuxuu sheegay boqolka cishe soo socota waxyaalada la hirgelinaya waxa kamid ah in 45 wadan oo adduunka ah inuu ka furo mashaariic bayc mushtara mashaariic waaweyn waliba oo bayc mushtara oo ku shaqeyn doona boqolaal milyan oo dollar marka mashruuca shanaad afraadina waa waxaas weeyaan okay dawladdu walba waxaan ogaanay quwadda naacimka ay leedahay annaka marka sidee bay quwadda naacimka inoo soo gashaa halkay ku socotaa may najaxday mise ma najixin arinta waan isla arki doonaa maalin kale oo soo socota waxaan aad isha u saari doonaa quwadda naacimka ee Qatar halkay fadhidaa wadanadeena Geeska Afrika ta Turkiga halkay fadhidaa ta Imaaraadku halkay fadhidaa waxa lagaba maarmaan in indhaha kala furno oo barano waxaasi markaas quwadaha naacimkii ee shaqeynaya ee uu qoray maartay Joseph Nye ninka Harvard jooga kitaabkiisa الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية مركو سوى قرية مارتي ناجركا مارتي اسبدليس حوغ أمريكانكا تيسا مارتي أدق دوركا تيسا مارتي جلع سببا انت مركو شيغي هذا بولا ليال أنكو جيسك أفريكان كنا الله جيسك أفريكو ميل فلسة ما يسماها وميل انفعال وميل مارتي لو يرارو وحلقة دميستو وحلقة دميستنا كدب لغو شقيستو ويان مركا هالكي dowladaha ka helaa muxaadaradeena soo socota ayaan isla arki doonaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh